soo qoranayna anagu midnimada u joognaa maxaanu meesha u fadhinaa maxaanu idinla joognaa haddii midnimada la ilaalinayo annakaa ilaalinayna annakaa Soomaaliland kasoo jeedna annagana doonayna in la walaaloobo la isku soo noqdo calaamad baanu nahay astaan baanu nahay laakiin nagu meedan ixtiraamin waxaa idinka muuqata caatifad iyo dagaal iyo degdeg iyo orod waxaad jebinaysaan ood ka hor imanaysaan walaaltinimada aanu idinla joogin runtii aad baan xoogaa u kacsanahay ma doonaya hadalka inaan sii badiyo run haddii la sheegayo hala keeno xeerka ha lagu soo daro Ethiopia xeerka haddaan Ethiopia lagu soo darin oo DP World keliya laga hadlo waxay noqonaysaa ku tiiqs iyo ku joogsi iyo ka hor imaad qaran dhan oo jira waynu ognahay Somaliland waa qaran jiray xilligii ay la timi calankeeda iyadoo qaran miyay jirtay markaa galmudug iyo miyay jirtay hirshabelle iyo miyay jirtay koonfur galbeed miyay jirin iyadoo qaran ay idin timi qarannimo waa in lagu qiimeeya qarannimadeedina waa in lagu karaameeya laakiin maanta degadii baa la dhisaya Ethiopia barkaga Ethiopia lama hadlayo fila Soomaaliya degan tahay wallahi waa waxa aniga iga yaabiyo weeyaan taasna midaan qaadan karna ma aha xeerka waa lagu degdegay xeerkan ha lagu soo daro Ethiopia haddii aan lagu soo darin micnaheedu waa in halka fadhida ee Soomaaliland kasoo jeedaan kaca oo ka baxa golaha dhexdiisa laga baxo sidaasay noqonaysa hana lagu kalifina taas marka walaaltinimadeena iyo wadajirkeena iyo astaartaan nahay hana lagu qiimeeyo hanoo ra'iisul wasaaraha uu joogo goobta uu ka hadlo Ethiopia la hadlo ma Ethiopia hadda loo yeero mise waa sidii dhaqan dhagax baa la dhiibay ma ogay bariida la weeraray ma ogay guriga sanad cabdi qaydid baa la weeraray ma ogay tanina waa ma ogay miyaa waa mahadsantihiin guddiga loo saaro xeerkana dib loo dhigo salaamu calaykum